dhammaan guddoonka golaha dhexe guddiga fulinta xisbiga silnaanta ammaanka ugumaqalweynta ummadda Soomaaliyeed marka hore mudan iyo damuuni wasalaamantihiin salaan kadib muddo dheer ayaa waxaa ku horumaray doorashadii xogayaha guud sidii loo qaban lahaa 3 bilood iyo abaaf ayaa nala soo diintay waqtigii ay soo gudagalowi lahayd ayaa waqtigaan ilaahay ka dhigay markii hore waxaa taagnaa ilaa muddo hal musharax waxaa lagu soo kordhay si otomaatikal ah musharax kale oo wixiisii soo dhamaystay annagoo aan filaynin oo aan ku ursugaynay muddo kalamaad ka darsataan ilaahay keenay musharaxii kale oo la tartami lahaa doorashada sharcigeedu wuxuu yahay 2 xubnood wixii ka badan ayaa tartami karta hal xubin doorasho ma loo qaban karo waa loo qaadi karaa hal xubin laakiin doorasho sida qalada camal loo qaadanaa baryaha diiwaangelinta ansixinta xubnaha golaha dhexe ee wax dooran lahaa 14 bisha ayaa howshaas bilaabatay 15 howshaas ayaa socota maanta oo yacni mataqaanaa maanta oo 16 ah si aan u dhageysano xogayaasha musharaxiinta xogayaasha waxa ay soo shirtageen ay ummaddan ku hogaamin doonaan khudbadahooda inaan dhageysano si fiican aan u ruuxno qofkii ummaddaas sanadka bixin kara iyo qofkii wax u qaban kara inaan khudbooyinkooda ayaa ka dareemayna inaan dhageysano maalinta sabtiga oo 18 waxaan si dhaba u gudageli doonaa doorashadii ayaa si dhaba u gudageli doonaa guddiga doorashada waa kala furmanaha shirkood ilaa howshaan uu ka qabanayna arrintaana waxay xaalad jirta awgeed ayaa degdegtaan hadda soo guudida taas ayaa u dhacday marka xubnaha golaha dhexe qaarkooda ma joogaan qaarkoodana waa joogaan laakiin intii joogta ayaa dooran doonta oo koorabkooda daya ayaa dooran doonta xogayaha guud warkiina aad ayaa ugu dheeraaday wabilaahi tawfiiq haddana waxaan soo dhaweynaya سلام كثير وعن سلام يا جميع حزب السماء مولانا عريش الحسين وعن سلام يا مدقة مولانا مولانا حق الحسين يا دمان انت كسلطات بشيء ما تشرف تفضل بهذه السلام سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وعليه عليكم شيئين وحاول معناها من جرا ما دام هو بعيد وابتدى ما شكب حي سيدي معناها حزبي وين لها بعيد وبتاع وشيء هذا يا رسول الله حقيقة ما أنت أصلي تقولك وهاي حقيقة ليش على الحزبياشة شامي كمان هو هاي التاريخ اللي يكون لا يتوقع العوائي تجيش ياخد بلعب مشارحين طلبي توقع مركز الجيرون عشان مالك مركز شرفك أيوة قلنا تدري توقع سكير توقع يحاول أن بحي خلق متاع أو شرف ورشنا وغاية حزبنا سم أنت أسكت كل الدنيا كلها تمام معها وحكت وحيله إسلامي الناس كل إلهي أسمعي هيك سوق هرتو إلهي معناها أو تبقى ودي قاعد في سماء قلتي ودبلتي هذه قبل قولي أيام مرة سمعت
الجيود أشياء جبتة وما سنتين مشاركتي وحنتودي أنا بمعنى أفرد هنا نقول قلنا لها أنا بدي معناها دور شغلة وجاية حزبية هذا واحد شو وين يا هذا كبير ده حزبي بريسي أيسر مكاين هذا ورقدان ووجدان لو مشرح سبيلون يا كفر مشرح هو سعيد دنجال ديك عدوان مجلس معينة علامات أو قومان أو أفريقيا سودا علامات نحن يا فيكسينا يعني كي سعيد دور دري من كده ممكن نيجي لبعض أمبارو واي علامتان أساس كله مركز رونيك ورقسيو أمبارو ورقدان الفكسينا استناد بسان أما فكسيو نيجاسون دوتي علامت تنهر أيار دوتي علامت كان أوليك أفكسينا مركز ما عندي أو ما يفهمني هاي مفردتي والخلاص بس برضه عندنا مع المستمعين هنا مشاركين في كنترول كودي أعمل بيسمى بيوحى بمستوى الغلاء وقامين هذا هو